السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سو دوادا maanta waxaan gorfayn doonaa ama qaada dhigi doonaa timirta. qaybta koowaad. timirtu waa mid kamid ah miraha ugu macaan ee la cuno. timirtu waxay kulansatay faa'iidooyin badan marka laga tago dhadhanka macaan oo ay leedahay oo ay caan ku tahay. waxaa ku jira nafaqooyin tirabeel ah iyo antioxidants kuwaas oo jirka ka nadiifiyo sunta soo gasha. qaybta labaad, maxaa ku jiro oo nafaqo ah timirta? timirtu waxa ay ka kooban tahay borotiino, carbohydrate, fiber, sokor dabiici ah, calcium, iron, potassium, magnesium, copper, selenium, vitamin B6 iyo folate. dhammaan qurubyadaasi waxay faa'iido u yihiin shaqada jirka. qaybta saddexaad, faa'iidooyinka laga helo timirta isticmaalkeeda waxaa ka mid ah faa'iidada koowaad, antioxidant oo ah sun baabi'iyaal. antioxidant-ku waxay baabi'isaa sunta soo gasha jirka, waxaana loo qaybiyaa 3 nooc oo antioxidant ah sida polyphenols, carotenoids iyo lignans. faa'iidada labaad oo ay leedahay timirta waxay noqonaysaa timirtu waxay kor u qaadaa oo ay caawisaa caafimaadka caloosha iyadoo kor u qaado microbiome-ka. microbiome-ka waa bakteeriya caloosha ku nool oo caawiso caloosheena una samayso fitamiinka kana disho jeermiska wasakhda keeno iyo dhibaatooyin keeno kuwaas oo dhibaateeyo nafteena iyo xiidmaheena. faa'iidada saddexaad waxaan ku soo qaadanaynaa timirta leedahay timirtu waxay taageertaa lafaha maadaama ay leedahay oo aan soo sheegnay macaadin aad ugu muhiimsan koritaanka lafta iyo fiyoobideeda. waxaa ka mid ah macaadinta ku jiro phosphorus, potassium, calcium, magnesium. faa'iidada afraad, waxay sahashaa timirtu dhalmada. cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyay waxaa lagu ogaaday in ay siyaadiso hormoonada fududeeyo dhalmada. sidaa darteed cilmi baarisyadu waxay ku taliyeen in haweeneyda uurka leh 3 usbuuc ka hor loo bilaabo raashinka timirta ama in ay badiso isticmaalka timirta. faa'iidada shanaad ay leedahay timirtu ayaa waxa ay ka kooban tahay sokor dabiici ah kuwaas oo carabka aad ugu macaansan karo. timirtu waxaad ka dhigan kartaa cabitaano, sidoo kale waxaad ku darsan kartaa raashinka, waxaad u samaysan kartaa qaabab kala duwan maadaama ay leedahay wax loo yaqaano low glycemic index oo ah in aysan saameyn badan ku yeelanaynin sokorta dhiigga haddii aysan xadka dhaafin oo aysan badnayn. timirtu waxay buuxinaysaa booska caadiga ah ee raashinka caadiga ah, sidoo kale waxay ku buuxinaysaa booska cuntooyinka aad isticmaali lahayd. faa'iidada lixaad, timirtu waxay kordhisaa oo ay kor u qaadaa badqabka maskaxda ama caafimaad qabka maskaxda. waxay yareysaa interleukin 6 oo dhaawac u geysan kara maskaxda haddii uu ku bato dhiigga, waxayna keentaa haddii ay badato interleukin 6ka cudurro khatar ah oo uu ka mid yahay Alzheimer disease ama cudurka loo yaqaan lelemada. cudurkaas oo ah dhaxal, balse haddii ay ku badato interleukin 6ka ku sii siyaadi karta dhibaatadii. faa'iidada toddobaad, wuxuu hoos u dhigaa amyloid protein. amyloid proteinka ama amyloid beta protein wax la dhahaa jiro waa borotiino kuwaas oo jirka galo waxayna keenaan inay fariistaan xubnaha ugu muhiimsan ee jirka oo uu ka mid yahay maskaxda, oo ay ka mid tahay wadnaha, oo ay ka mid tahay kiliyaha, oo ay ka mid tahay beerka, oo ay ka mid tahay beeryaraha, oo ay ka mid tahay dheefshiidka, oo ay ka mid tahay neerfaha oo dhan. faa'iidada sideedaad, timirtu waxay kordhisaa shaqada maskaxda. waxaa aad u kordhayo fahamka iyo shaqada maskaxda iyadoo xifdiga iyo garaadka uu siyaadiso. waxaana la arkaa ilmaha markii ay dhiganayaan dugsiyada haddii la siiyo in maskaxdooda iyo caqligooda xifdiskooda uu siyaado.